السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال kusoo dhawaada cashirkeena lixaad oo aan haduu Ilaahay ka raali noqdo uga hadli doono talaalka looga hortago teetanada ee la siiyo hooyada uurka leh. Talaalkaas oo muhiim u noqon doona inuu uga hortago hooyada canugeeda inay teetan uga dhacdo iyo nafsad ahaanteeda inay teetan ku dhacdo intaba kaas oo ka difaaci doona cashirkani oo noo noqon doona markaasi cashiradii noo soo soconayay kiisa lixaad ee uu ka dambeey doono cashirkii gunaanadka ahaa haduu Ilaahay ka raali noqdo. Sidii dabeecadda noo jirtay inta aan u galin talaalka waxaan rabnaa inaan isla ogaano waxa ay teetan tahay. Teetana oo Soomaalida ay u taqaano cudurkani teetano iyaduna ay iska dhacdo ayaa macnihiisa saxda ah oo Soomaaliga wuxuu noqonayaa cojiso. Tetanus toxoid marka waxa loo yaqaan waa sunta cojisada. Waxaan rabnaa inaan marka ka hadalno talaalka loo qaato sunta cojisada ay leedahay markaas. Horudhac ayaan ka sameynaynaa talaalka sunta cojisada ee qofka bilaadanka hadii uu ku dhacdo dhibaateyn karta ayaan horudhac ka sameynaynaa markaasi ayada si aan isku fahanno. Tetanus waxa loo yaqaan oo ah cojisada waxa magac kale leedahay waxa waaye lockjaw ama daaman xiran. Waxa lagu yaqaanaa qofkii in hadii teetanadu ay ku dhacdo in labada goos oo goosaha isdhaafsado oo afkiisa la kala fur waayo marka waxa loo yaqaanaa lockjaw oo ah in qofkii daamankiisa ay xirmaan. Teetanadaas ama cojisadaas ayaa marka waxay tahay caabuq khatar ah oo ay sababtay bakteeriyada loo yaqaano Clostridium tetani ayaa sababta. Bakteeriyadan ayaa waxay soo saartaa sun taasoo markaasi waxyeeleynaysa maskaxda iyo habdhiska dareenwadayaasha taasoo markaasi qofka u horseedaysa kadib qalafsanaadaan murqaha qofka bilaadanka jirkiisa ku jira. Taas ayaa waxa loo yaqaanaa teetano si kooban. Cojiso qaabkay ku gudubtaa teetanada maadaama iyada isla fahanay inay tahay bakteeriyada Clostridium tetani ilmaaragtada ah inay sababto cojisadaas sidee loo kala qaadaa ma la kala qaadaa sidee u gudubtaa qaabkay ku gudubtaa markaasi. Tetanus cojisada sidaba kuma gudubto inay qof ka soo gudubto oo ay qof kale gudubto ma ahan cudurrada la kala qaado qof inta ka soo gudban qof kale u gudba. Caadiyan markaasi sida caadiga ah la sloogaya waxa laga helaa teetanada ciida ayaa laga helaa. Waxa kale oo laga helaa boorka. Waxa kale oo laga heli karaa markaasi saxarada ama digada ariga ama waxa loo yaqaan markaasi saalada ayaa laga heli karaa. Bakteeriyadani guud ahaan waxay markaasi jirka ka soo gashay oo soo martaa markaasi break oo ah markaasi dilaacyada ama meeshii markaasi jabtay ee jirka kamida oo maqaarka sare ah. Sida dhaawac markaasi go'an ama duleela ayaa waxaas ay galaan oo ama ay taabtaan shay markaasi wasaqaysan oo ay wasaqayday bakteeriyadii jirka ayay waxay ka soo gali kartaa meel maqaar kamida oo dilaacday taas oo ama duleesha ama go'an oo ay taabtaan ama ay galaan shayyaal ama ashyaa wasaqaysan waxaan kala jeednaa bakteeriyada teetanada keenaysay ay markaasi taabatay. Caabuqani kaliya waxa looga hortagi karaa talaalitaan quman ee la siinayo qofkii talaalka teetanada ama cojisada ayaa sida quman ee looga hortagi karo ah. Haddaba calaamadaha ku garan kartaa maxay yihiin hadii shakhsigani uu qabo cojiso waxaad ku garan kartaa tetanic seizures ama markaasi qalal teetanadu ay leedahay. Qalalkaasi teetanada ay leedahay ayaa wuxuu yahay markaasi isku imaatin murqaha ay isku imaanayaan jirka
murqaha jir ku jira oo isku imaanaya si xanuun badan awoodna la isku imaanaya taas waxa loo yaqaanaa qalal kojiso ayaa loo yaqaanaa in murqaha si xoog isku imaadaan xanuun badan haddii murqago if the muscle spasms haddii murqago uu saameeyo markaasi bocorka oo ah hawo mareenkii bilowgiisii qaybtii dhexe ama derbiga markaasi xabadka haddii uu murqago uu saameeyo waxay sababi karaan neef qabatin qofkii haddii murqago-aasu uu yahay meesha markaasi bocorka ah ama xabadka derbigiisa waxaa laga yaabaa inay markaasi qofkii ay ku sababto waxa loo yaqaan asphyxiation oo ah neef qabatin waxa kale lagu yaqaan calaamad kale oo aad ka loogu garanaya waxay tahay qalafsanaan lagu yaqaan qofkii daamankiisa in daamankiisa isku dhagaan oo hadan loo yaqaan lock jaw oo daaman xiran qofkii labadii inuu goosaha isdhaafsado afkiisa la kala furi waayo waa calaamad aad caan u yahay waxa kale lagu yaqaan qalafsanaan caloosha iyo maxaan ku dhahay markaasi murqaha dhabarka waxa kale lagu yaqaan inay isku imaadaan murqaha ku jira wajiga qofka wajiga oo yeesho waxa kale lagu yaqaan in wadnihiisa garaaciisa xawli qofkii noqdo iyo qandho saayida iyo waxa lagu yaqaan markaasi dhiid inuu qofkii ka socdo waa calaamadaha caanka ku tahay kojisadu haddaba inta maadaama isla ogaanay waa maxay talaalka aan teetanada ama kojisada aan ka qaadan karno si aan maadaama aan soo dhaanay qaabka kaliya quman ee cudurka laga hortagi karo waa in qofkii laga talaalo kojisada haddaba aynu isla fahanno talaalka teetanada haddaba sida aan daawad uga jeedno slide-kan hor yaalla ayaa wuxuu muujinayaa inuu talaalka teetanada yahay qaabkan soo socda faasiinka qofka la siinaya ee TT-da loo yaqaanaa isla TT-da waxaa laga soo gaabiyay tetanus toxoid oo ah sunti kojisada cudurka uu ka hortagayaa huna waa tetano 5 ilaa 5 doos ayaa qofka la siiyaa oo 5 mar ayuu qaataa iyadoo loo fiirinayo jadwalka 5 mar lagu siiyo qofka uu reeda ah ama ku guda jirta xilliga da'da dhalmada oo loo yaqaan child period age dooska la siinayaa waa 0.5 ml ama hal laba loo qeybiyay markaasi oo mililiter ayaa la siiyaa sida aan talaalada badankooda hore u soo aragnay qaab noocay ah ayay tahay haddaba talaalka teetanadu waa mid dareere ah oo qaab dareere ah ayuu noogu imaadaa Soomaalida badana ka isticmaasha waa dareere mid kale inuu jira ma cadeyn karno qaabka markaasi dhankee laga qaadanayaa waa muruqa ayaa laga qaadanayaa loo yaqaan deltoidka ee qaybta sare ah muruqa deltoid loo yaqaan qaybta sare ah ee bidixda ayaa waxay tahay dhanka laga qaadanayo laakiin wadada shakhsigaasi loo marsiinayaa waa intramuscular oo waa muruq ayaa loo marsiinayaa xagal 9 ayaa duraysa sida kaaga muuqata shakhsiga meeshan ku sawiran la siinayo waa ujeedaa dhankana sida kaaga muuqatahay waa la mid daawade waxa laga doonayaa inaad haddaba iska saxid qaabka aad u siinayso labadan picture si toos isaga fiirisid qatar ay leedahay sida guud waa maya qatar lagu yaqaanay hadii la siiyo qofkani talaalka kojisada waa maya maxaa difaaca lagu guuleysan karaa waa 100% sida ay sheegaan talaalka teetanada waa ka dhaladan ku jira TT vaccine waa ujeedaa ama vaccine TT talaalka dhalaas ku jira dhalooyinku way kala bedelnaa karaan haddaba waxaa loo baahan yahay marka inaad ogaato jadwalka talaalka lagu siiyo haweenka ku guda jira da'da dhalitaanka daawade waa 15 ilaa 49 inta badan la isku waafaqsan yahay la isku keeno inay haweenku dhali karaan dooska ay qaadanayso iyo jadwalka la rabo inay ku imaato hooyada markaasi ama qofka shakhsiga ku guda jira da'dii dhalitaanka ee haweenka ah ee rabo inuu qaato talaalka teetanada ama kojisada waqtiga uu soo laabanayo iyo inta mar ay u qaadanayo TT1 ama tetanus toxoid 1 talaalka koobaad ee markaasi kojisada wuxuu qaadanayaa waqti walba
ee uu ku imaado ama sida ugu horeeyay uguna macquulsan ee markay uurka koobaad leedahay haweeneydu waqtiga koobaad ee ku imaado ama sida ugu horeysa ama ugu macquulsan ee markaasi xilliga uurka koobaad ay leedahay. talaalka labaad isla marka labaad ay ku soo laabanaysaa waa bil kadib markii ay ku soo booqatay booqashadii koobaad laga bilaabo maalintii ay ku timid ilaa hal bil kadib ay ku soo laabanaysaa. kan saddexaadna waxay u soo laabanaysaa oo markii saddexaad la turayaa waa 6 bilood kadib markii ay qaadatay kii labaad ama intay ku guda jirto uurka ku xiga uurkii ay markii koobaad kugu timid uurka ku xiga. TT4 waxay qaadanaysaa 1 sano kadib markii ay qaadato kan saddexaad markii ay qaadatay muddo laga joogo 1 sano ayay qaadanaysaa ama intii uurka saddexaad ay ku guda jirto. kan shanaadna waxay qaadanaysaa 1 sano kadib markii ay qaadatay kii afraad ama intii ku guda jirto uurkii ku xigay kan afraad markii ay qaadatay. waxaan jeclahay inaad daawada wax badan ka fahamtay. haddaba faa'iido ma noo leeyahay TT-da talaalkan kujisada haddii aan qaadano goorma la siiyaa difaac intee leeg ayuu mid walba dhalin karaa. kan koobaad ee aad siiday waqtiga koobaad ee ku timid haweeneydu ama xilliga ugu horeysay ugu macquulsaneed uur koobaad ay leedahay haddaba ma dhali doono wax difaaca. ogaaw haddii aad qaadatay kan koobaad ha isku dhihin inta kale ma qaadanay waayo mid ayaan qaatay oo wax ma oo dhaliyo markaasi difaac. kan labaad ee aad siiday 4 isbuuc kadib aad siiday markii ay qaadatay kii koobaad waa 1 bil kadib ayaa la jeednahay wuxuu dhalin doonaa difaac 1 ilaa 3 sano ah. kan saddexaadna ee aad siiday 6 bilood kadib markii ay qaadatay kan labaad ama uurkii ay ku xigay uurkaas ay leedahayna waxay dhali doontaa difaac gaaraya 5 sano. kan afraad ee aad siiday 1 sano kadib markii aad kii saddexaad siiday ama uurkii ku xigay ay leedahayna wuxuu dhali doonaa difaac 10 sano ah. kan shanaad ee markaasi aad siiday 1 sano kadib markii aad kii afraad siiday ama uurkii ku xigay uurkaas aad kii afraad ku siiday ay kugu imaatana wuxuu dhali doonaa difaac gaaraya dhammaan inta uu shakhsigaasi ku guda jiro da'da dhalitaanka ama dabcan in ka sii badan intaasi. haddaba waxaa laga baahan yahay si hooyo aad difaac uga gashay teetanadaas ama kujisada oo ah midda markaasi dhibaato u keeni karta adiga jir ahaantaada iyo maxaan ku dhahay canugaada oo ku keeni karta xilliga aad dhalaysid inuu teetano ama kujisay ku dhacdo. waxaad isweydiin kartaa sidee ugu dhaxaysaa oo sidee suurtagal u tahay in aniga igu dhacdo ama canuga igu dhacdo. haddaba qalabka lagu sameynayo dhalitaanka ama lagu dhalinayo haddii uu yahay mid aan nadiif ahayn wuxuu keeni karaa teetanada oo jirkaadii markaasi la gelgelinayo. marka waxaa laga doonayaa inaad qaatid talaalka teetanada ka hor inta aad dhalin si jirkaada difaac uga sameysto teetanadaas. halka ayaanu kusoo gabagabaynaynaa talaalkii aanu siineynay hooyada ama qofkii haweenka ahaa ee ku guda jira da'da dhalitaanka inuu difaac ka galo teetanadii ama kujisadii. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.